mas-uuliyiinta jaamacadda islaamiga al-najaax ee magaalada burco ayaa ka jawaabay warbixin ay qoreen qaar ka mid a warbaahinta online-ka ama websaydada ee ka howlgala Somaliland. warbixintaasi oo lagu sheegay in khilaaf xooggan u dhaxeeyo madaxda jaamacaddaasi. mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaamacadda al-najaax ayaa ku tilmaamay warbixinta mid been abuur ah oo aan sal iyo raad lahayn, isla markaana aanu jirin wax khilaaf oo u dhaxeeya madaxda jaamacaddaasi. warkaasina uu yahay mid xaqiiqada ka fog, waxaanay digniin culus u direen cid kasta oo ku lug leh warbixintaasi been abuurka in sharciga la hor keeni doono lagana qaadi doono tallaabo aanay mahadin. jaamacadda al-najaax ayaa jaamacadda keliya ee u gaara barashada culuumta shareecada islaamka iyo luqadda carabiga ee uu ku soo degay qur-aankeena kariimka, waana jaamacad ay gacanta ku hayaan culimaa udiinka ugu waaweyn gobolka Togdheer. higsiga jaamacadda al-najaax waxaa ka mid ah soo saarista bulsho aqoon durugsan u leh culuumta shareecada islaamka, tayeynta luqadda carabiga, ka hortagidda fikirada khaldan ee lagu khalkhalgelinayo diinteena islaamka, helitaanka bulsho islaam oo noloshooda ku saleeya ilbaxnimadii hore islaamka iyo ka badbaadinta dhalinta dhaqamada shisheeye. waxaana ka hadlay goobta culimo ay ka mid ahaayeen Dr. Faysal Maxamed Cali, Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame iyo Sheekh Cabdulaahi Daahir Jaamac. ugu horeyn waxaa akhriyay warmurtiyeed kooban oo ay soo saareen madaxda jaamacadda al-najaax. Cabdulaahi Baashe oo ka mid ah madaxda jaamacadda al-najaax. jaamacadda najaax waxay jawaab ka bixinaysaa war been abuur ah oo lagu faafiyay website-ka Berbera Today. haddii aanu nahay mas-uuliyiinta jaamacadda najaax ee kala ah Dr. Faysal Maxamed Cali, Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame iyo Sheekh Cabdulaahi Baashe, waxaanu halkan ku cadaynaynaa in warka lagu faafiyay website-ka Berbera Today 6dii bishii 3aad 2017 oo ciwaan looga dhigay khilaaf xooggan oo ka jira jaamacadda uu yahay warkaasi mid been abuur ah oo looga gol leeyahay in lagu dhaawaco sumcadda iyo waxqabadka jaamacaddan. warkan markii aanu u kuurgalay oo wax ka weydiinay mas-uuliyiinta Berbera Today u jooga magaalada Burco iyo Berbera, way ka warwareegeen isha ay ka soo xigteen ama warka qortay ee u soo gudbisay. sidaa daraadeed waxaa noo cadaatay in ujeeddo xuni ay ka dambayso taas oo jaamacaddan islaamiga ah lagu bartilmaameedsanayo. jaamacadda najaax oo muddadii koobnayd ee ay jirtay horumar ballaaran samaysay, si weyn oo muuqatana wax uga bedeshay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo guud ahaan Somalilandba, gaar ahaan barashada shareecada islaamka iyo luqadda carabiga, waxaa majaraha u haya oo maamulka ah culimo caan ah oo magac iyo sumcadba ku leh dalka, kuwaas oo ay ka mid yihiin Sheekh Cali Warsame Xasan, Sheekh Dr. Faysal Maxamed Cali, Sheekh Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame, Sheekh Cabdulaahi Daahir Jaamac, Sheekh Cabdulaahi Baashe, Sheekh Faysal Cali Faarax oo la wada yaqaano, iyo Sheekh Cali Maxamed Axmed Cali Mawlid. haddaba annagoo mar labaad cadaynayna in warkaas jaamacadda laga qoray uu yahay mid been abuur ah oo ujeeddo guracan laga leeyahay, waxaanu uga digaynaa dadka caadada iyo shaqada ka dhigtay inay saxaafadda wax ku caayaan ama warar aan sal iyo raad toona lahayn oo ummadda fitno iyo kala fogeyn u horseedaya ku qoraan. waxaanu uga digaynaa caqiba xumada ay ka dhaxli karaan ficiladaas foosha xun adduun iyo aakhiraba. waxaanu kaloo leenahay ilaahay ka baqa oo risiqa aad cunaysaan ku raadsada sifa xalaal ah oo aan dalkiina iyo dadkiina dhibaato ku ahayn. halkan waxaanu ku fadhinaa howlwadeenadii iyo madaxdii jaamacadda najaax. jaamacadda najaax waa jaamacad islaamiya oo aan business ahayn oo loo asaasay fidinta shareecada islaamka iyo luqadda carabiga si bulshada loogu adeego, wacyiga islaamiga ana la kobciyo. jaamacaddu 2 sano ayay hadda shaqaynaysay, si fiican u shaqaynaysay. 2daas sanana guulo aad wax ku oola ayay bulshada ku soo kordhisay iyo xidhiidho badan oo caalamka la samaysay. jaamacaddu waxaa aad moodaa wax waliba haddii ay hana qaadaan oo walibana muddo kooban ay ku hana qaadaan inay yeeshaan dad waxa weeye xaasidiina
ama aan jeclayn wanaagga iyo horumarka aan jeclayn waana de sunno kawniya oo nolosha lagu yaqaano wax kastoo wanaaga oo hagaaga inay dad waxa weeye ay jeclaysan waayaan maalmahan dambe waxaad moodaa inay soo bilaabmayso waxaan fiicnayn oo habboonayn oo ah wixii muuqdaba ama wanaaggii soo baxaba in waxa weeye media si xun looga faa'iidaysanayo been abuurna laga faafinayo oo ay ugu dambaysay hadallo maalmahan facebooka iyo websaytada qaar ku faafay oo la leeyahay khilaaf ba'an oo xooggan baa jaamacadda soo kala dhex galay waxaan halkan ku caddaynayna jaamacaddu sidii loo ogaa iyo khayrkii iyo wanaaggii lagu aasaasay inay ku socoto khilaaf ba'an ama xooggan oo keenaya wiiqaya wixii jaamacaddu ay u socotay inaanu ka jirin baanu caddaynaynaa waataa madaxdeedii la tilmaamay la magacaabay inay ku kala tageen jaamacadda inay isdhinac fadhiyaan oo jaamacaddii hawsheeda dhinac uga soo wada jeedaan insha allahu tacaala marka waxaan leenahay warka noocaasi waa been abuur sal iyo raatoonna ma laha allana ha ka cabsadaan subxaana wa tacaala dadka waxaa noocaasa faafinaya welibana annagu waxaanu leenahay dagaalka lagu hayo jaamacatu najaax ama colaadda loo qaadayo waxaad moodaa inay u eg tahay mid loo qaadayo shareecada iyo dacwada iyo islaamka loo qaadayo waayo inta aanu shaacadda ku hayna waa intaasu aad iyo aad ha looga digtoonaado ha laysaga ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullah run ahaantii waxaan la qabaa labadii mas-uul ee iga horreeyey hadlay arrinkaa iyo warkaa la sheegayna qaabkii aanu ugu talagalnay inaan uga jawaabnana waa qaabka qoraalka ah sheekh cabdulaahi baasha inoo akhriyayey wixii been abuurka ahaa ee la faafiyey jawaabteedu waa intaa waxaan doonayaa keliya inaan dadka imaqlaya ama i dhegaysanaya aan u sheego jaamacatu najaax jaamacad urur iyo siyaasad iyo kooxaysi loo sameeyey ma aha waa jaamacad ummaddu ay leedahay muslimiinta oo dhan baa leh reer somalilan baa leh reer togdheer baa leh sidaa daraaddeed wax ka sheegidda wax laga sheegaa waxay la mid tahay in lasoo weeraray ama wax laga sheegay waxa weeye gobolkii iyo waddankii iyo dadkii wax laga sheegay sidaa daraaddeed qofka ummaddu waxay leeyihiin haya maamulaya u taagani in loo mahadnaqo ayuu mutaystay inuu wax laga sheego oo la aflagaadeeyo waxa weeyaan ma mutaysan sidaa daraaddeed jaamacaddan culimmadii waddanka waxa weeyaan ama gobolka caanka ka ahaa ay hormuudka ka yihiin waxaan leeyahay ma geydo waxyaabaha noocaas oo kale ah in lagula kaco ciddii waxaa samaysayna waxa weeyaan inay ilaahay subxana wa taala u toobad keenaan oo ilaahay kaga baqaan iyo cid kasta oo haysata weel ama meel ay ku faafiyaan warar inay ilaahay kaga baqaan waxa ay faafinayaan inay ogaadaan in la weydiin doono wax kastoo ay ku hadlaan iyo wax kastoo ay qoraan in aakhire la weydiin doono inay waxa weeye culimmadan ay weerarayaan ee ay wax ka sheegayaan jaamacadda iyo khayrka ay wax ka sheegayaan inay waxa weeye habaaran ay ku filan tahay in mustaqbalkooda iyo danahooda dhanba waxa weeyaan habaarka ay habaaran inuu baabi'iyo sidaa daraaddeed lama mid aha meelaha fadhi ku dirarka ee lagu maago iyadoo cumuuman aanay bannaanayn in ummadda wax laga sheego haddana ummaddu maraatib bay kala leedahay marka taa aad iyo aad ayaan u akidayaa jaamicatu najaaxna insha allahu tacaala cid meel wax ka tidhaahdaa waxba yeeli mayso waa jaamacad insha allahu tacaala ilaahay dartii loo aasaasay waanay ku soconaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa ahdaafta iyo yoolka jaamacatu najaax ay leedahay ee ah inay baahida diinigee loo qabo geeska africa dadka muslimiinta ay u qabaan inay baahidaa daboosho oo ay noqoto meel geeska africa looga soo cilmi doonto insha allahu tacaala taasina waxa weeye waa mid ay ku tashadeen maamulka imika gacanta ku haya iyo dadka wanaagga jecel oo dhani ay isla og yihiin jaamacadduna inay sidaa u shaqayso sidana u socoto ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu inoo dembi dhaafo khayrkana ina waafajiyo wasala allahu wasalama wabaarak calaa cabdihi warasuuli maxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin jaamacadda islaamiga alnajaax ee magaalada burco oo jirtay muddo 2 sano ah ayaa gaadhay guulo waaweyn waxaanay heshiisyo la gashay jaamacado jiray muddo ka badan 50 sano oo ku yaala daafaha dunida waxaa wax ka dhiga khubaro ku xeel dheer cilmi baarista arrimaha islaamka iyo luqadda carabiga waxaa ka howlgala 5 professor oo ajaaniba
oo sitaa shahaadada PhD-ga waxaa gudoomiye ka Dr. Faysal Maxamed Cali oo shahaadada PhD-ga ka sitaa culumta shariicada islaamka isla markaana cilmi baare arrimaha islaamka. Cali Daahir Maxamed Boos, Burco.